بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan daawadayaasha ku xiran channelka Mimir Qaan channel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada xisaabta ee fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imaanaya MK channel soo gudbiyay waa Ustaad Mimir Qaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe gareey adigoo gujinaya gambarka like comment igana waa inuu muhiim mahadsanid waxaan weli ku guda jirnaa chapter 2 oo complex number ah qaybihiisa kala duwan maanta waxaan qaadan doonaa tusaale kamid ah tusaalooyinka aynu u bedeli doono polar formka qaybta yar inooga hartay ayaan videogan kusoo gudbin doonaa la socod wacan way tusaalaha 2.2 waxaanu rabnaa inaanu convert ku sameyno complex number keena la siiyay 2 radical 3 minus 2i into polar form inaan u rogno waxaan dhahnay complex na la siiyay waa 2 radical 3 minus 2i ayaan waxa u rogi doonaa as a complex number waliba as a form oo ah polarka aan xasuusino polar form qaadada waxa noo ahayd r cos theta plus i sin theta ay noo ahayd okay marka fiirino qaabka hadda uu qoran yahay waa standard form oo ah x plus yi ay u qoran yahay standard formkaas ayuu qoran yahay sida aweed maadaama standard formkaas uu qoran yahay waxaan rabnaa formkan inaan ka dhigno si aan u noqdo marka polar form maxaan uga baahanahay marka formka polar form kan ka dhigano maxaan kaga baahanahay polar form kan ka dhigano waa inaan helnaa moduluska waa inaan helnaa arithmetic labada bes kaliya ayaan waxaan ka dhex raadin doonaa tirada noo qoran ee complex numberkaas ah kadibna ku bedelasho ayaan sameyn doonaa way dib aan isku xasuusino r oo moduluska maxaa lagu helay r moduluska waxa lagu helayay real square oo lagu daray imaginary square ayaa lagu daray ama real part square oo lagu daray imaginary part square si la mid ah argumentiga waxay la mid ahayd hadba waaxida waay la mid tahay sida aweed argumentiga mar walba waxa raadinaysaa alpha waxay la mid ahayd tan inverse imaginaryga oo loo qeybiyay real numberka kadib waaxida aad u fiirinayo ayaa mar walba waxa fiirinaysaa marka alpha iyo theta waxyaabaha markaasi relationka ka dhaxeeya way hadda waxaan ka raadin doonaa moduluska aan raadino r waxay la mid tahay dhahnay x oo square plus y oo square hadaba r waxay leeg tahay x maanta waxay noo taagan qaybtan dhan hadda waxay u taagan yihiin x oo taagan yihiin oo ah 2 radical 3 oo whole square plus y waxay u taagan tahay ama u taagan -2 square garay iyadana hadaba r waxay la mid tahay square kan uu ku dhaca kan hadduu ku dhaco wuxuu noqonaa wax loo yaqaano 4 ayuu noqonaa kana xididkaas oo kala baxa oo ku dhufsha ayaa meeshaas ka samaysmayso 3 ah waxaan dhahnay square kan waa saaran yahay sidoo kale kan marka la saaro waa 4 kana xididkan oo la goosana 3 oo isku dhufsana plus kan markii la square gareeyna sidoo kale waa 4 yani -2 hadii la square gareeyo minuskaas square ka oo dhawanka ama evenka ayaa baabinaya r oo moduluska ah waxay la mid yahay labadan oo la isku dhuftay waa 12 oo lagu daray 4 hadaba moduluska wuxuu la mid yahay 16 xidid markii aan ka saarno wuxuu la mid yahay 4 ayuu la mid yahay maxay noo dhiman marka waxay noo dhiman waa inaan complex number kan aan ka raadino argumentiga intaan ka raadin karo marka hore alpha ayaan raadin doonaa alpha waxay la mid tahay tan inverse y over x ayay la mid tahay hadaba alpha waxay la mid tahay waxaan haddii main si ay jiraan waa iska nitrena oo si toos ah balaashyada u qaadan doonaa sababtoo anaga waxa u fiirin rabnaa marka theta waaxideed iyo wax kala duwanaa ayaan u fiirin doonaa okay tan inverse y maxaan haystaa y booskeed maxay noo taagan 2 ay noo taagan oo loo qeybiyay x waxay noo taagan booskeed ama imaginary real number waxay noo taagan radical 2/3 and 2 radical 3 aan oo dhiman okay balance si haweeno labada isla bixinayna alpha waxay la mid tahay tan inverse 1/radical 3 ay noqotay tan inverse 1/radical 3 maxay la mid tahay marka okay waxaan
alfa waxay la mid tahay tan inverse y over x booskeeda ayaan ku bedelinay kana sii burburinay 1 over radical 3 ayaan noqotay hadda waxaan gelin doonaa scientific marka okay scientific ayaan gelinaynaa oo marka hore radian inaa saaran tahay oo radian uu ku saaran yahay iska hooy markii radian saarno waxaan leenahay marka shifti tan ayaan leenahay processkan hore u soo marnay wax noogu cusub ma ahan video kaga horeeyay ayaan ku soo baranay so 1 over radical 3 tan inverse 1 over radical 3 waxay la mid tahay by over 6 ayay la mid tahay by over 6 haddaba hadda maxaa u baahanaa marka theta u baahanaa theta maxay la mid tahay marka theta maxay la mid tahay aan is xasuusino waaxda koowaad waxaan nahanay dhammaantooda plus waaye dhammaantooda plus waaye kow maadaama dhammaantooda plus ay tahay thetadeena iyo alfadeena waa isku mid waaxda kale waxaan nahanay sina plus naga ah labada kale waa minus sidaa awgeed theta waxay la mid tahay by oo laga jaray alpha by oo laga jaray alpha ayay la mid tahay si lamid ah qaybta saddexaad waxaa plus naga ah tan plus naga ah sidaa awgeed thetadeena waxay la mid tahay alpha oo laga jaray by ama alpha laga jaray by ayay la mid tahay si lamid ah waaxda afraad waxaa plus naga ah cos sin minus tahay tan minus y sidaa awgeed thetadeena waxay la mid tahay minus alpha ayay la mid tahay hadda marka waaxda joognaa waxaan leeyahay waaxda koowaad alpha iyo theta isku mid maadaama wada plus yihiin waaxda labaad theta waxay la mid tahay by oo laga jaray alpha waaxda saddexaad thetadeena waxay la mid tahay alpha oo laga jaray by marka inta waaxda afraadna waxay la mid tahay thetadeena minus alpha ayay la mid tahay hadda waaxda joognaa marka waax oo x keena uu plus yahay y deena minus tahay si kale aan dhahno waax oo cos keena plus tahay y sin keena uu minus yahay hadda waa waaxda afraad waay waaxda afraadna maxay la mid tahay marka minus theta ay la mid tahay minus alpha ay la mid tahay thetadeena waxay la mid tahay marka minus by over 6 ay la mid tahay minus by over 6 ay la mid tahay marba haddii aan thetadii helnay oo argumentkeena aan helnay si lamid ahi moduluskana aynu haysano waxaan u bedeli doonaa formka ah polar formka oo waxay noo tahay formka r cos theta minus I sin theta bal aan ku bedelin marka r maxaa haysanaa r waxaan haysanaa 4 ayaan haysanaa oo waxa aan bedelayno maxay yihiin horta waa complex numberka noo qoran waa 2 radical 3 minus 2i complex numberkiisa markii polar form loo bedelo wuxuu la dhigmaa r to aan haysano 4 si lamid ahi cos theta waxaan haysanaa minus by over 6 ayaan haysanaa plus I sin si lamid ahi argumentiga waxaan haysanaa minus by over 6 ayaan haysanaa minus by over 6 ayaan haysanaa markaa fiiriso argumentiga negative ayuu leeyahay sidaa aweed horena waxaan usoo baranay waxaan dhahnay coska negativeka sidiis banaan buu qarinaa laakiin sinka awood uma laha inuu qariyo oo daliil ayay leedahay oo proof ayay leedahay inay banaanka usoo bixisay markaa noqonaysaa minus 4 oo moduluska noo ahaa cos theta oo noo ahaa minus by over 6 waxaan dhahnay minuska coska way qarinaysaa oo way baabi'inaysaa laakiin sinka ma baabi'inayso banaanka ayay usoo bixinaysaa minus I sin by over 6 okay qaabkaan ku dayi karaa dabcan waa ku dayin kartaa meeshaas waa ku simi kartaa laakiin waxaa kasii wanaagsan inaa halkan markaasi aad sii geyso si hadhow aad u googelin meelahaas hadii kugu imaado oo kale googelinta jawaabtan ay qorayaan kan qorayaan si maadaama jawaabtan qorayaan si lagu keenay inaad barato waa muhiim waxaan aanay complex numberkeena la qoray iyadoo formka ay ku qoran tahay ay tahay standard formka marka ay ku qorneed waxaan u baahanay inaan u qorno polar formka sida amarkan ku siiyey polar form marka u qorayno waxaan u baahannahay laba midkood inaan helno kow inaan helno moduluska complexkaas iyo weliba argumentiga complexkaas moduluska wadadooyinkii aan kusoo raadin jirnay isla wadadaas aan ku raadinay oo ahaa in xidid aan sameyno kadibna aan gelino realkii oo isku weeran kadibna aan ku darno imaginary oo isku weeran waan sameynay afar aan kasoo helnay moduluska markaan raadin kadib argumentiga noo xiga argumentiga waaxya ayaa loo fiirinayaa inta waaxyadaasi aan ka gaarayno marka hore waxaan raadinayna wax loo yaqaan alpha alfana waxay la mid tahay tan inverse
imaginaryga oo loo qeybiyo realka. markaan soo saarnay alfada waxaan u fiirnay waaxda ay tahay, waxaan isla ogaanay inay tahay waaxda afraad maadaama sin ee negative ay tahay cosna ay positive tahay. maxaa yeelay all student take chemistry ayuu ahaa, all oo ahaa waaxda koowaad dhammaantooda plus ay ku yihiin, student oo ahaa sin micnaha plus ka ah, labada kale waa minus. take oo ahaa tan inay plus tahay, labada kale ay minus tahay. chemistry ama calculus si kale aan dhahnana waxay tahay waa c oo ah coska ayaa waxay noqonaa plus, halka labada kalena ay noqonayaan minus. halka cos plus ay ku tahay tan iyo sin ay minus ku tahay waa waaxda afraad. waaxda afraadna theta waxay la mid tahay minus alpha. haddaba alpha waxaan soo helnay pi over 6 minus pi over 6 ayay noo noqonaysaa. durba waxaan aadaynaa marka wixii haddii nala diro polar formka ah oo qasab noogu noqotay inaan moduluskii argumentiga raadin. maadaama aan soo helnay ku bedelisha ayaan samayn doonaa. art boskeeda wixii aan helnay oo ahaa 4 unit ayaan ku bedeli doonaa. theta ama argumentiga boskeeda waxaan soo helnay minus pi over 6 anagoo waaxidii aan usoo fiirinay minus pi over 6 ayaan ku bedelinay. markii intaa marayso minus pi waxaa waaye angalka minus ayuu wataa, sida aweed maadaama minus uu wato waxaan ahaynay coska minuskas way yani baabi'inaysaa, halka sin ee banaanka ay usoo saarayso. cos pida oo minus pida minuskaasi oo thetada ay wadata waa ay baabi'iso, waxay noqotay cos pi over 6. halka sinkana minuskaas dib ay usoo turtay gudaha banaanka ay ugu soo dhufatay noqotay marka minus sin oo I sin pi over 6. xafladana fahanteen, aad u mahadsantihiin dhegeysigiina wacan iyo daawashadiina qaaliga ah. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinaya gambaleelka like commentigna waa inoo muhiim. mahadsanid.